السلام عليكم أردنا الصوماليات ملكس وجوكتان كسر هذا مركل 10 كيلوبات بوجا تكنولوجي فورم 4 10 كيلوبات طبعا وحن كسر شكلين introduction هردع كوسابسن system analysis and design وحن صور شكلين system محلي هذا وحن كسر هذا اللي characteristics of system محل system لو قرنايا وحن سوق يعني information system waxa la yiraahdo examples aan ka soo sheegnay waxaan soo sheegnay qaybaha uu ka kooban yahay information system sida hardware software data people iyo process now waxaan ka bilaabanaynaa boga shanaad page-ka shanaad 1.3 purpose of information system hadafka laga leeyahay information system ka ujeedada information system loo sameeyo waa maxay dadka sameeya applications ama programyada waxa ay sameeyaan waxa la yiraahdo waa productigaas waxa loo yaqaanaa information systemka waa systemkii shirkadda ay ku shaqeyn lahayd oo hawlaheeda ay ku qabsan lahayd soo marka why hadafka loo sameeyo ujeedada loo sameeyo information system maxay tahay Following are the same purpose of information system kuwa soo socda waa ujeedooyinka loo sameeyo information system number 2 provide information that assists with strategic planning in an organization ka oo siiyo an information system lagu plan gareeya organization ka meesha u socdo strategic planning waxa la yiraahdaa qorshaha organization ka ee 5 sano soo socdo ama 10 sano soo socdo ama 20 sano ama 50 sano soo socdo in lagu sii qorsheeyo the processed information ka la sameeyay ee la process gareeyay usually helps wuxuu caawinayaa in making long term plans qorshaha waqtiga fog ayuu caawinayaa for organization ulay soo hadii information system wanaagsan organization kan uu sameeysto wuxuu wax ka tarayaa in maaragtay qorshihiisa dheer 10 sano 50 sano 20 sano aad organization-ka inta istiraatiijiyad uu sameystay soo adiga waxay kugu xiran tahay information system-ka nooca sameystay sidoo qurux badan yahay ujeedada labaad waxa waaye better performance and increase productivity okay waxa wanaagsananay wax qabadka organization-ka soo wax soo saar badan ayuu sameynayaa isku mid maahan marka organization ka isticmaalaya warqad iyo xaansho oo wax ku maamulaya wixii la soo dhaafay ee register isticmaalaya organization ka isticmaalaya system diyaarsan oo ama ha noqdo online ama ha noqdo offline isticmaalaya isku mid maahan soo wax soo saarkaaga ayaa kordhaya support the distribution of information to different departments wuxuu caawinayaa information-ka in lala wadaago waaxyaha kala duwan ee organization-ka si for operation purpose si organization-ka dhaqdhaqaaqiisa iyo howlqabadkiisa ay wax ugu tarto soo marka information-ka ayaa si fudud la isku gaarsiinayaa soo faa'iidada ujeedada saddexaad wata okay page-ka lixaad ayaan soo gaarnay 1.4 system analysis and design maxaa la yiraahdaa marka system analysis and design is the mechanism waa farsamo by which people build taasoo dadka ay ku dhisayaan automated information system oo automatic ah information system casri ah lagu dhisayo it's remarkable waxa xusid badan that people who do system analysis and design dadka system analysis and design ka sameeyo produce inay soo saaraan information system which are used internally waxay sameynayaan information system organization gudihiisa laga isticmaali karo ama sold commercial via email or web ama information system oo la gadan karo oo email isugu diri karo ama website-ka la saari karo retail or store laga tafaariqeyn karo ama bakhaar la dhigi karo meel store and embedded in products
oo ku saabsan marka ku xiran productyada organizationka uu soo saaro. marka system analysis and design sidaan hore u soo sheegnay maadada buugga dhan ayaa ka hadlaya ama chapterka dhan ayaa ka hadlaya systemka inta aan la soo sameyn information systemka inta aan la soo sameynin waxaa ka horeysa in la ogaado baahidii ma loo baahan yahay systemka, then designkiisa sidee ayuu ekaan doonaa waxaas la sameeyo. waxaa jirta marka waxa la yiraahdo system analysts and system analyst arkayna qofka systemka analyze gareeyo weeyaan. A system analyst is the title. System analyst maxaa la yiraahdaa waa darajo ama ciwaan given to a person la siiyo qof who studies kaasoo soo baara the problems and mushkiladaha and needs iyo baahida of organizationka uu leeyahay, looking for isagoo raadinaya improvement in wax la wanaajiyo, opportunities iyo fursado for improving oo lagu wanaajinayo quality tayada of service or product organizationkan adeega iyo productiga alaabta oo organizationkan hayo ayaa waxaa loo raadinaya inay sii wanaagsanaadaan. Reducing costs si loo yareeyo qarashaadka and increasing the income loo kordhiyo dakhliga oo profit ama faa'iidada organizationka soo galayso. Normally sida caadiga ah system analyst should have the following skills. marka qof kasta ma noqon kara system analyst maya. system analyst waa inuu leeyahay skills kan soo socda waa inuu leeyahay. system analystiga waxaan soo sheegnay waa title, waa qofka soo analyze gareeya, raadiya, ogaada baahida in system loo baahan yahay si tayada loo kordhiyo. so qofka system analystiga waxa laga rabaa inuu lahaado skills kan ama xirfadaani. working knowledge of information technology. IT waa inuu leeyahay cilmi u leeyahay wax ka yaqaano information technology waa inuu si fiican u yaqaano. computer programming experience and expertise. waa inuu wax ka yaqaana sida wax loo programmeeyo computerada oo yahay nin khubaro ku ah. general business knowledge. waa in business uu cilmi ka haystaa oo businesska guud uu wax ka fahansan yahay. general problem solving skill. waa inuu leeyahay xirfad mushkilad xalin ah oo haddii teamka wax sameynaya iskhilaafaan uu xalin karo. waxaa kaloo laga rabaa good interpersonal communication skill, inuu yahay qof maaragtay xiriir dhaxgal bulsho leh, dhaxgal bulsho oo dadka maaragtay communicationkiisa hadalkiisa uu wanaagsan yahay, dadka hadal deeqsin karo, then aan ahayn qof maaragtay qof dabeecad xirxiran, inuu yahay qof furfuran oo interpersonal skill leh. and flexibility and adaptability. waxaa la rabaa qof flexible ah oo aanan meel isaga dhignayn oo marka haddii wax lagu qabsado ka garbixi karo, then adaptable ah oo wax la qabsan kara isla markiiba. okay, waxaa kaloo laga rabaa character and ethics. qof dabeecad leh, asluubtiisii anshaxiisana anshax wanaag leh ayaa laga rabaa. skillskaas ayaa laga rabaa qofka system analystiga. yaa noqon karo qofka managerka noqon karo, waxaa noqon karo software programmers, dadka softwareka programmiyo ayaa noqon karo. waxaa noqon karo system stakeholders, dadka systemka daneeya noqon karo. waxaa noqon karo users, dadka isticmaala, qofka soo isticmaala ah naftiisu haddana system analyst noqon karaa. okay, waxaa noqon karo vendors and suppliers, dadka maaragtay wax soo laga soo iibsado ayaa noqon karo. technical specialists, dad khubaro farsamo yaqaan ah ayaa noqon karo. so halkaas ayuu fadhiyaa system analystiga, dadkaas oo dhanna wuu la shaqeeyaa. good. page-ka 7 waxaan gelaynaa system development life cycle 1.5 SDLS. system development life cycle sida horeba aan idinku soo sheegay waa marxaladda systemka laga soo bilow ilaa dhammaad marxaladaha la marayo. the system development life cycle am SDLC laga soo gaabiyey is a conceptual model, waa hab fikir that incorporates taasoo keenaysa policies and procedures, siyaasad iyo nidaam to build in la sameeyo or alter ama in la bedelo systemka during their life cycle. systemka intuu jiro ama system la sameynaya ama system jiray ayaa wax laga bedelayaa
so marxaladahaas oo dhan ayaa la yiraahdaa. This method is used nidaamkan habkan waxaa loo isticmaalaa to provide inuu ku siiyo structure qaab dhismeed for technical and non-technical activities howlaha farsamo u baahan iyo kuwa aan u baahneenba in order to produce high quality software si loo soo saaro software tayadiisa wanaagsan tahay that meets the standard and expectations taas oo laga rabo inay daboosho maaragtay heerarka iyo rajada customerka waxa uu customerka ka filayo. So adiga waxaa rabtaa system adiga customer ahaan ah ku qancinaya in aad heshida la rabaa. So system development life cycle consists of details and stages wuxuu ka kooban yahay marxalado and activities iyo howlo which describe how to plan waxay marka tilmaamaysaa sida loo qorsheeyo loo analyze gareeyo loo design gareeyo loo develop gareeyo loo horumariyo loo test gareeyo testing deployment hadhowna loo setup loogu dhigo oo dadkii computerada lagu shubo maintain hadhow lala socdo oo loo dayactiro and support a software system kana loo sameeyo. So marka SDLC marka waxay ka bilaabataa planning ay ka bilaabataa waxa waa in la plan gareeyaa koow waxaa ku xiga analyze okay qaybtasan sharxaya planning uu ka bilaabanayaa SDLC waa la plan gareynayaa then analyze waxaa la raadinayaa baahidii then design waa la design gareynayaa then coding waa la codekii ayaa la gelinayaa lagu xirayaa marka codeka la xiro waa la test gareynayaa waa la tijaabinayaa codekan iyo systemkan ma shaqeynayaa then deployment yaa ku xigo oo waa setup ayaa lagu sameynayaa oo cajalada lagu shubayaa computerkii oo maaragtay qofkii loo rabay systemkaas lagu shubayaa then maintenance hadhow waxa waaye markasta haddii uu halaabo waxaa lala daba joogayaa waxaa la fiirinayaa inuu wax ka halaysan yihiin then markasta saani ku soconay haddii maintenancega mar walba uu xun yahay then sidaas ayuu wareeganaya. Okay, stageka marka planning ugu horeeya activity koobaad maxaa waaye system stage of system analysis development life cycle maxaa waaye planning. System planning phase wajigaas oo plan gareynta is the first phase waa wajiga koobaad in a system development life cycle. SDLC wajigiisa koobaad it determines waxay go'aaminaysaa whether or not there is the need haddii ama in loo baahan yahay for new systemka cusub to achieve the strategic goal in lagu gaarayo ahdaafta goalska organizationka ama companyga. Marka waxaa la balan gareynayaa waxaa la isweydiinayaa systemka cusub ee la sameynayo goalska organizationka u degan ayaa la waafajinayaa lagu balan gareynayaa marka haddii baahi jirto ayaa la isweydiinayaa. The aim of this phase wajigan koobaad ujeedadiisa is to conduct waxaa waaye in la sameeyo preliminary investigation. Preliminary investigation waxaa waaye baaritaan hore oo wixii lasii balan gareynayay inay baahi jirto in kale to determine si loo go'aamiyo opportunity or issue and fursadaha ama xaaladaha relevant to the information technology ee khuseeyo IT-da. The preliminary investigation baaritaanka koobaad is an essential stage waa marxalad muhiim u ah because the result will affect natiijadaas waxay saameyn ku yeelan doontaa the whole development process dhammaan systemkaas processkaas la sameeyo ayay saameyn ku yeelan doontaa. So stagekaasi waa in si fiican loo plan gareeyaa haddii plankaas uu fail garoobo systemka oo dhan ayaa fail garoobi doono. Pageka shanaad waan galnay the key component muxuu ka kooban yahay marka preliminary investigation key component of preliminary investigation waxaa ugu muhiimsan marka midka wax koobaad ee ugu muhiimsan preliminary investigation marxaladaas marka lagu jiro waxaa ugu muhiimsan feasibility report wax la yiraahdo report la soo saaraya oo ah war ma la sameyn karaa system ismaya. Evaluating waxaa la qiimeynayaa possible costs and benefits qarashka lagu geli karo iyo faa'iidada uu keeni karo ayaa la qiimeynayaa. And recommending waxaa la soo jeedinayaa a course of action based on organizational, technological, economical and time factor. Organizationka systemkan baahidiisa ma dabooli karaa
technological dadka wax sameynaya farsamo ahaan mu yaqaanaan economic dhaqaalihi ku bixila ma lahaya time factor waqtiga la rabo systemkan in lagu soo saaro ma la soo saari karaa kuwaas waxa la yiraahdaa feasibility study ayaa la yiraahdaa the type of feasibility study nooca feasibility study-ga carried out are noocyada la sameynayo feasibility study ayaa la sameynaya feasibility study-gaas waxa ka soo bixi doona wax la yiraahdo feasibility report ayaa ka soo bixi doona so feasibility study-ga intan oo meel la fiirinaya la study gareynaya operational feasibility technical feasibility economic iyo schedule feasibility operational feasibility waxa waaye this is done to determine arintan waxa loo sameeyaa in la go'aamiyo if the proposed solution waxa la rabo in la gaar la sameeyo ee la soo jeediyay waa systemka is able to be used ma awood ma loo leeyahay in la isticmaalo and will be in a proper working condition and si fiican ma u shaqeyn doonaa taas laga fikirayaa okay operation ma shaqeyn doona waxani wax shaqeyn doono oo si fiican u shaqeyn doona ma yahay then technical feasibility la fiirinayaa farsamo ahaan this is done to determine arintan waxa loo sameeyaa in la go'aamiyo if the proposed solution hadii systemka la rabo in la sameeyo can be supported by ay support garan karaan by available technology technologyada la haysto maaragtay iyo systemka la sameeyo ma is yeelan doonaan ama marka qaar waxa la dhahaa technical ahaan dadkan wax sameynaya technologyada ma yaqaanaan economic feasibility dhaqaalaha markan la baaraya this is done to determine waxa loo sameeyaa in la go'aamiyo the proposed solution halka la soo jeediyay ama proposal waxa la sameeyaa systemka la sameeyaa is financially affordable ma laga bixi karaa maaliyad ahaan and is beneficial maaragtay faa'iido ma yahay oo wax faa'iido keeni kara ma yahay ma laga bixi karaa lacag ahaan faa'iidana ma dhali kara taas la fiirinaya schedule feasibility waa time-ka waxa la leeyahay this done to determine arintan waxa loo sameeyaa in la go'aamiyo if the proposed solution hadii halka la soo jeediyay can be developed la sameyn karo and made operational within a required time waqti la rabay ma lagu sameyn karaa ayaa la fiirinaya wax warkaas oo qoraal ah ayaa la sameynayaa then normally the preliminary plan-ka qorshaha koobaad asaaska ah for a company's business initiatives hal-abuurka businesska is to obtain waa in la helaa the resources wixii la rabay ee resource-ka ahaa kheyraadkii to build on infrastructure si lagu dhiso kaabaha to modify or improve service si adeega loo wanaajiyo ama wax loogu bedelo so halkaasi waxaa kasoo bixi doona feasibility report ayaa kasoo bixi doona good and then waxaan gali doonaa mid ayaan u fiirin doonaa next session waxaan ka bilaabi doonaa analyze ayaan ka bilaabi doonaa 1.6.2 intaas markaa waxaan rabaa inaan ogeysiis yar aan rabaa inaan idin jeediyo somtage iyo macallimiinta inta badan waxay rabaan garab istaaga ardada Soomaaliyeed sidaas ayaan u sameynay casharada mar walba inta awooddanada ah waxaan isku dayaynaa inta awooddanada inaan soo dhigno oo halkan aan soo dhigno ardada inta badan waxay leeyihiin hal soo boobsiyo oo waxa waaye hawsha way la fududahay laakiin sida dadka ay u maleynayaan uma sahlano arinta hawl badan ay u baahan tahay waqti ay u baahan tahay time ay u baahan tahay innagana hawshan kaligeed kama shaqeyno waa waqtiga aan fursadda leenahay ayaan rabnaa inaan ardada Soomaaliyeed caawino waana rajaynayaa in big project uu noqdo oo dadka dhan ay wax ka faa'iidi doonaan mustaqbalka haddii la helo the resources needed resourceska loo baahan yahay in la helo waan qof walbana uu dareemi karaa resourceska loo baahan yahay resourceska loo baahan yahay waxa waaye waa macallimiin heegana waa wixii ku shaqeyn lahaayeen iyo agabkii waa resourceska iyo timekii oo la helo hawshaas waa lagu howlan yahay mustaqbalkana waa la gaari doonaa
laakiin ardada Soomaaliyeed waxaan ka rabnaa inay sabraan si marka ay u noqdaan ardada sanadkii hore sanadkan xogaa difference ayaa jiro waxaan sameynay WhatsApp VIP group okay WhatsApp VIP groupka muxuu yahay muxuu ardayga WhatsApp VIP group ku jiro oo faa'iidaya wuxuu faa'iidi doonaa linkiga YouTube ka casharka aan dhigno inaan soo dhigno waayo waxaa laga yaabaa marmarka qaar ardayga in notification bell-ka ay gacanta ugu dhacdo oo uu ogaan waayo xilliga YouTube-ka aan wax soo dhigayno soo marka aan soo dhigno linkiga ayaan group ku dhigaynaa waxa kale oo ardaygu uu helayaa WhatsApp VIP group ku jira haddii casharka dabcan uu su'aalo leeyahay su'aalaha in aan ardayga aan la fiirino inta badan ma ahan in su'aalaha lagala shaqeeyo haddii buugga aad haysatid oo su'aasha lagaaga shaqeeyo soo adiga research ba samayn kartid waxna ma baran kartid inta badan ardayga laga rabaa inuu isku dayo inuu su'aasha uu isku dayo oo uu ka jawaabo then anagana waan ku hagi doonaa sida ayaan ku hagi doonaa faa'iidada ayuu yeelan doonaa si marka loo kala ogaado ardayga ay ka go'an tahay inuu wax barto iyo ardayga kale waxaa jira condition yar shuruud yar oo aan aad u adkeen ayaa jirto dabcan shuruudaasna waxa waaye numberka hoos ku qoran la xiriir si aad shuruudaasi u aragtid waxaan filayaa inaad fahantay nalana socon doontid asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh Soomaaliya waxa idin sheegaa segsegnimaa la iska dhaafo some teach waa cilmi la soo duuduubi haddaa idin sheegi waa lagu soo shubay